kooxda qaranka Soomaaliya ee xeegada barafka ayaa dalka Sweden kula ciyaaray koox ka socotay dalka Afghanistan. ciyaarta oo ka dhacday magaalada Karlstad ee dalka Sweden waxaa warbixintan nooga soo diray wariyahayaga halkaasi nooga soo warama Xasan Liisho. gelinkii dambe shalay ayaa waxaa ciyaar muddo dheer la sugayay ku dhex martay garoon ku yaala magaalada Karlstad ee dalka Sweden labada kooxood ee u kala ciyaarta dalalka Soomaaliya iyo Afghanistan. ciyaarta oo ahayd mid ay martigelisay kooxda dalka Afghanistan ayaa lagu qabtay garoon ku yaala magaalada Karlstad oo saldhig u ah kooxda dalka Afghanistan ee ciyaarta kubadda xeegada barafka ee sanad kasta laga ciyaaro qaar ka tirsan wadamada qaaradda Yurub. ciyaarta oo ahayd mid aad u xiiso badnayd ayaa waxa u soo daawasho tagtay dadweyne isugu jira Soomaali, Afghanistan iyo qaar ka tirsan shacabka dalka Sweden oo isaga kala yimaaday magaalooyinka ku dhow Karlstad iyo kuwa ka fog maadaama ay ciyaartu dhex mareysay laba kooxood oo aan dalalkooda laga ciyaarin ciyaarta xigada barafka ee baandeyda. qadar daqiiqada ah markii ay socotay ciyaarta ayaa waxaa goolkoodii koobaad la hormaray kooxda qaranka Soomaaliya ee xigada barafka iyadoo uu u xaqiijiyay ciyaaryahanka qadka dhexe uga dheelay Cabdiraxmaan Barkhadle kadib markii uu fursad ku helay kubad si qurux badan uu uga farsameystay difaaca hore ee kooxda Afghanistan. in yar kadib goolkoodii labaad ayaa waxaa u saxiixay kooxda Soomaaliya ciyaaryahan Axmed inkastoo gool saddexaad loogu daray kooxda Afghanistan waxaase qadar yar kadib kooxda Afghanistan u suura gashay goolkoodii ugu horeeyay ee abid ay kooxda Soomaaliya ka dhaliyaan ka oo xamaasada garoonka cirka ku sii shareeray waxaana ciyaartii labadeedii qaybood ku soo idlaatay 9 gool iyo 1 oo guushii ay ku raacday kooxda qaranka Soomaaliya ee xigada barafka Soomaaliya baandey. labadan koox ayaa dabayaaqadii sanadkii tagtay ee 2016 isagoo hor yimaaday ciyaarta xeegada barafka garoon ku yaala magaalada Borlänge ee dalka Sweden iyadoo ciyaarta gabagabadii ku soo idlaatay 15 gool iyo waxba oo guushii la hooyatay kooxda qaranka Soomaaliya matalaysay ee Soomaaliya baandey. Xasan Liisho, Somali Cable TV, Karlstad, Sweden.